subscribe saar si aad u hesho muuqaal kasta oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. soo dhawaada saaxiibayaal, magacaygu waa Jihaad, waxaana jira 17 sano. Aabahay sanado ka hor ayuu geeriyooday. Aniga iyo walaashii Rahaf waxaan ahayn kuwo yaryar. Hooyaday ayaa dusha u ridatay tarbiyadeenna iyo waxbarashadeenna. Sidoo kale hooyaday waxay maamulo ka ahayd shirkaddii aabahay. Hooyaday waxay isbarteen wiil dhalinyaro ah oo aniga iyo Rahaf aanan horay u arkin weligeen. Sidaas oo ay tahayna hooyo wiilkii guriga ayay keentay. Waxay nagu tiri, Jihaad iyo Rahafey, waad aragteen Muraad, sideed u aragtaan? Waxaan ku iri, hooyo anigu ma garanayo, horeyna weligay uma aanan arkin. Sidee ayuu asagu noo maamulayaa? Rahaf ayaa tiri, anigu ma jecli, asagu wuxuu u egyahay qof la yaab leh. Hooyo waxay tiri, waa ceeb inaad sidaasi u dhaqantaan. Waxay tiri, hooyo adiga ayaa arrintan na weydiiyey. Hooyo ayaa tiri, aniga iyo Muraad waxaan go'aansanay inaan isguursano. Sidaa daraaddeed wuxuu noqonayaa qof qoyskeena ka mid ah. Waxay ku tiri Rahaf, maalinna qoyskeena kama mid noqon doono, anigu waa necbahay. Hooyaday sidaas oo ay tahay waxay guursatay Muraad, wuxuuna bilaabay inuu guriga nagula noolaado. Annagu waxba kama garanayno noloshiisa iyo qoyskiisa. Markasta oo aan isku dayno inaan wax ka weydiinana sidaan oo kale ayaa dhacaysa. Waxaan ku iri, laakiin aaway qoyskaadii? Hooyo ayaa igu tiri, Jihaadow, horay ayaan kuugu sheegay in su'aalahaas oo kale aad iska daysid. Mar walba ayaa dadka weydiinaysaa. Asaga qoyskiisu asagoo yar ayay ka tageen. Sidaa daraaddeed su'aalahaasi waa inaad joojiso. Waxaan ku iri, waan ka xumahay hooyo, anigu sidaasi ulama aanan jeedin. Markaas ayuu yidhi, dhib ma lahan wiilkaygiyow, qisadaydu waa mid aad u murugo badan. Anigu warkiisa ma aanan rumaysan. Maxaa yeelay ninkani kama muuqato inuu wax duruuf ah soo maray yaraantiisii. Asagu waa nin la yaab leh oo ku dadaalaya qarinta shakhsiyaddiisa. Annagu ma aanan awoodin inaan ninkani isfahamno. Markasta oo maalmuhu ay sii socdaan, ninkani waan sii necbaanaynaa. Asagu marna dhibaato nooma uusan geysan, laakiin annagu uma aanan begin, aad ayaana uga cabsanaynaa. Kaaga sii darane hooyadeen waxay bilowday inay annagana ilowdo oo asaga ku mashquusho. Xaaladeenna waxba kalama socoto. Asaguna wuxuu hooyo u koolkoolinayaa si ku xeel dheeraasho ah. Habeen kasta wuxuu u keenayaa koob cabitaan ah, wuxuuna ku qasbayaa inay koobkaasi oo dhan ayadu dhammayso. Isla arrintaas ayuuna samaynayaa subax kasta. Aniga ayaa ahmiyad siinayay walaashay iyo sidoo kale waxbarashadeeda. Aniga ayaa la xisaabtami jiray si ay u akhriso casharadeeda iskuulka, halka hooyadeenna ay bilowday inay wax walba iska ilowdo. Xitaa ayada shakhsiyadeedii ayay iska ilowday. Waxay nagu tiri, aaway boorsadeedii gacanta? Waxaan ku iri, hooyo waxay taallaa meeshii aad dhigan jirtay, albaabka gadaalkiisa ayay suran tahay. Meeshaas ayaad sanadahan oo dhan dhigan jirtay. Waxay igu tiri, waa la yaab, anigu waxaan bilaabay inaan wax walba iska iloobo maalmahan. Xitaa waxaan iloobayaa meesha aan joogo. Waxaan ku iri, hooyo waa inaad dhakhtarka booqato. Waxay igu tiri, dhib ma lahan wiilkaygiyow, shaqada badan ayaa sababaysa. Arrintii la yaabka lahayd waxay ahayd maalin maalmaha ka mida, aniga iyo Rahaf oo iskuulka ka soo laabannay ayaan waxaan la kulannay hooyadeen. Rahaf ayaa ku tiri, hooyo maxaad meeshan ka qabanaysaa? Waxaan ku iri, hooyo aaway gaarigaadii? Waxay nagu tiri, anigu waxaan raadinayay guriga, waxaan ilaabay ciwaankii gurigeenna. Waxaan bilownay inaan qosolno, laakiinse ayadu si la yaab leh ayay noo fiirinaysaa. Waxayna tiri, adinku yaa tihiin, aniga miyaa idin garanaya? Markaas ayaan ku iri, hooyo waxaan nahay carruurtaadii. Waxay tiri, anigu carruur ma lihi, anigu sidoo kale weligay nin ma guursan. Annaga dhan ahmiyadna ma aysan siinin. Horteeda ayayna iskaga sii socotay. Laakiin ninkeedii Muraad ahaa ayaa isla markiiba soo baxay, gacanta ayuuna ka qabtay. Waxaan ku iri, Muraadow maxaa dhacaya? Maxaa hooyaday ku dhacay? Markaas ayuu yidhi, hooyadiin way xanuunsan tahay wiilkaygiyow, maanta ayaan dhakhtarka geeyey, wuxuuna sheegay inay qabto cudurka loo yaqaano Alzheimer. Rahaf ayaa ku tiri, soo cudurkaasi ma ahan midka ku dhaca dadka waayeelada ah? Wuxuu ku yidhi, waa asaga, laakiin mararka qaar wuxuu ku dhacaa dad ay da'doodu yar tahay.
hooyo ayaan guriga geynay, laakiinse anigu aad ayaan u shakisanahay. Ninkan ayaan aad uga shakisanahay, maxaa yeelay waxaan aad ula yaabay sida aadka u fudud ee uu noogu sharaxay cudurka haya hooyaday. Laakiinse wax walba waxay ii caddaadeen markii aan arkay asagoo taleefanku hadlaya, asagoo weliba la hadlaya looyarka shirkaddii hooyaday, wuxuuna ku yidhi, soo dhowow mudane, anigu waxaan ahay Muraad oo ah ninkii qabay Badiica, milkiilaha shirkadda. Wuxuu ku yidhi, waan ku garanayaa mudane, maxaan kuu qabtaa? Markaas ayuu ku yidhi, waxaan doonayaa inaad berri shirkadda noogu imaato, xaaskaygu way xanuunsan tahay, waxayna rabtaa inay igu wareejiso milkiyadda shirkadda. Markaas ayuu yidhi, ma haysataan warqadda caafimaadkeeda oo arrintaas caddaynaysa? Wuxuu ku yidhi, haa, berri ayaan keenayaa warqadda, sidoo kale xaaskaygana waan keenayaa si aan arrintaasi ugu dhammayno wakhtiga ugu fudud. Haa, markaas ayaan ogaaday in Muraad uu leeyahay ujeeddo cayiman, waxa hooyaday ku dhacayana uu asagu lug weyn ku leeyahay. Haa, subaxdii markii la gaaray, markii ay shirkadda aadeen hooyaday iyo ninkeedu, anigu waxaan galay qolkooda anigoo raadinaya shay oo caddaynaya in hooyaday uu ninkaani dhibaataynayo. Qolkii ayaan si fiican u baaray, ilaa ugu dambayn aan arkay kaniini yar oo weligay aanan arag oo dharkiisa ku dhex jira. Waxaana soo xasuustay koobkii cabitaanka ahaa ee hooyadii maalin kasta uu siin jiray. kaniinigii ayaan soo qaaday, waxaana soo aaday nin deriskeenna ah oo daawooyinka sameeya. Waxaan ku idhi, adeer, waxaan doonayaa inaad i caawiso. Wuxuu igu yidhi, sideen kuu caawinayaa, ii sheeg. Waxaan ku idhi, waxaan wadaa daawo aan doonayo inaad ogaato waxa ay tahay. Daawadii ayaan u dhiibay, aad ayuuna u yaabay. Markaas ayuu igu yidhi, xageed daawadan ka keentay Jihaadow? Ha igu dhihin dawadan ayaan isticmaalay. Waxaan ku idhi, maya, anigu ma isticmaalin, laakiinse waxaan ku arkay ninka qaba hooyaday. Wuxuu igu yidhi, tani waa daroogo weyn, waxaana la siiyaa dadka waalwaalan si ay boodboodka u joojiyaan islamarkaana neerfayaashooda loo dejiyo. Waxaan ku idhi, maxaa dhacaya haddii uu cuno qof caafimaad qaba? Wuxuu yidhi, ayadu waxay ku sababaysaa inay howlgab noqdaan unugyayaasha maskaxdu, ugu dambaynna waxay ku sababaysaa inuu wax kasta qofkaasi ilaabo. Haddii uu qofku muddo dheer isticmaalana waxay ku sababtaa cudurka loo yaqaano Alzheimer. Markaasi ayaan iska ooyey markii aan warkiisa maqlay, waxaana si fiican u ogaaday dhibaatada soo gaartay hooyaday. Wuxuu igu yidhi, maxaa kugu dhacay wiilkaygiiyow? maxaad la ooyeysaa? Si fiican wax iigu sheeg. Qisadii oo dhan ayaan uga sheekeeyey ninkii deriskeenna ahaa, aad ayuuna u yaabay. Waxaana sidoo kale u sheegay in ninkaani uu doonayo inuu maanta shirkadda la wareego. Wuxuu igu yidhi, laa xawla walaa quwata ilaa billaah. xaqiiqadu waxay tahay, anigu ninkaasi horay ayaan uga shakisanaa, asagu waa shaqsi la yaab leh. waa inaan hadda si dhaqso ah shirkadda u aadno si aan arrintaasi u joojinno. gaarigiisa ayaan raacnay, shirkadda ayaana aadnay. alxamdulilaah, waxaan shirkadda tagnay looyarkii oo isla markaasi yimid. wuxuu ku yidhi, waa inaad joojisaan arrintan, suurtagal ma ahan in dembiilahan shirkadda lagu wareejiyo. looyarkii ayaa yidhi, maxaad ka hadlaysaa? markaas ayaan looyarka uga sheekaynay wixii dhacay iyo daawadii aan ku aragnay dharka Muraad dhexdiisa. isla markaasi waxaa yimid Muraad oo wejigiisa ay ka muuqato calaamadaha la yaabku. markaas ayuu yidhi, Jihaadow, maxaad halkan ka samaynaysaa? muxuuse yahay ninka kula socda? isla markiiba sarkaalkii booliska ayaa soo galay, Muraad ayuuna qabtay. wuxuu yidhi, maxaa dhacay? anigu ma fahmayo waxa dhacaya. markaas ayaan ku idhi, aniga ayaa booliska la xiriiray intii aan waddada ku soo jirnay, waana tan dawadii aad u isticmaali jirtay hooyaday. sarkaalkii ayaa yidhi, ugu dambayn waan ku qabannay dembiilayahow. ninkii deriskeenna ahaa oo aad u yaaban ayaa sarkaalkii ku yidhi, ma ninkan ayaad garanaysaan? sarkaalkii ayaa yidhi, haa, muddo dheer ayaan ku daba jirnay. markii aad nala soo xiriirtay oo aad macluumaadkiisana siisayna waxaan ogaanay inuu asagu yahay qofkii aan horay u raadinaynay. asagu dumarka ayuu guursadaa, kadibna wuxuu siiyaa daawooyin uu ku burburinayo caqliyadooda si uu ugu dambayn ula wareego hantidooda una baxsado. dhacdadaasi kadib, hooyo waxaan geynay isbitaal. ilaahay fadligiisa kadib
kadibna dhaqaatiirtu dadaal ay sameeyeen hooyo way caafimaaday, xasuusteedina dib ayay ugu soo laabatay. waqti kadibna xaalad wanaagsan ayay ku soo laabatay, wax walba xaaladoodii caadiga ahaa ayay ku soo laabteen. balse Muraad asagu xabsiga ayuu ku jiraa si uu u dhadhamiyo ciqaabta dembiyadii uu geystay. dhammaan hantidii uu dumarka kala duwan ka dhacayna dib ayaa looga soo celiyey, sidaas ayayna wax walba ugu soo laabteen xaaladoodii caadiga ahayd. qisaduna halkaas ayay ku eg tahay, ee ha iloobin inaad muuqaalka like saarto. tan iyo kulantii dambe, nabadgeno. Subscribe saar si aad u hesho muuqaal kasta oo aan halkan soo gelino. mahadsanid.